السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنو ونكسن داوديال كسو دوادة تبينتينا برنامج كصوماليا اي سياسة دهبين والباحل يضان وكليان دين سو قدبنا على بوحين كسو قادنا حالة حساسيقا اي سياسة قدا دالك يدبادبا قضباد وقوا وين اي برنامج كعاوا اي نكو قادا ديك دونو ايا وحا كميدا حقتي وقدن بيسي taliya mahad salaad oo qorsheynaya in awood uu ku soo furto hub farmaajo horey uu uga qaatay villa Soomaaliya oo gurigiisa uu ku ilaashanayo maxaa ka jira in Xasan Sheekh Maxamuud taatika la yaab leh uu adeegsanayo qoor iyo lafta gareen oo faabiya xoogan ka qabay markii uu ku guuleystay xilka ugu sareeya dalka Cabdiraxmaan Cabdshakuur Warsame oo markii ugu horeysay ka hadlay sharcinimada kursigiisa oo hadalahayn xoogan aad ay uga dhalatay bulshada dhexdeeda iyo siyaasiyiintaba sidoo kalena waxaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada Ruushka oo ku sii siqaya magaalo ka tirsan kuwa ugu waaweyn ee dalka Ukraine haddii ay tahay markii ugu horeysay oo channelkeena aad soo booqatay nagu soo biir subscribe dhega baleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waad ku maadsan tahay la joogitaankaaga like dhe muuqaalka gruubyada whatsappka iyo facebooka inaad kusii share garayso ayaan kaa rajeynaynaa waa habeenimo ay sii baxayso jimco sabti ayaa soo galaysa taariikhdu waxay ku beegan tahay 3 bisha June sanadka 2022 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena haga media ayaad naga daawanaysaan markasta email kasto aad joogtana waxaad ku sii xirnaataa muuqaalada aan halkan idinkugu soo gudbino taliya mahad maxamed salaad taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa qorsheynaya in ugu yaraan awood lagu soo furto hub aad u tiro badan oo farmaajo horey uu uga qaatay villa Soomaaliya si uu uga ilaashado gurigiisa hubkan oo dawladdu ay lahayd ayaa la sheegay inta uusan ka guurin farmaajo in horey uu u sii qaatay isla markaana waxaa la filayaa in mahad salaad marka hore uu arintan ku tijaabiyo qaab nidaamka dawladnimada ah oo ah in farmaajo hub ku filan uu haysto laakiin hubka dheeraadka ah ee dawladdu ay leedahay gacanta dawladda sida ugu dhaqsiyaha badan uu ugu soo celiyo haddii farmaajo uu ka dhagaadeego falkaasi waxa ay keeni kartaa in awood ciidan ay nisa adeegsato si gacanta loogu soo dhigo hubkaasi farmaajo ayaa la warinayay inta uusan ka guurin gudaha villa Soomaaliya inuu qaatay agabyo kale oo muhiim ah hubkana inuu qayb ka yahay ay wararku sheegayaan isagoo haatan degan agagaarka airportka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa maalmihii aynu ka soo gudubnay uu walaac xoogan ka qabay weerar uga yimaada dhinaca nabad sugidda Soomaaliya si la mid ah farmaajo oo 5 sano oo xafiiska uu joogay u adeegsaday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka awoodiisa gaarka ah ee uu ku muujinayo in uu xilligaasi ahaa madaxweynaha ugu sareeya Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taatika la yaab leh u adeegsaday qoor iyo lafta gareen oo faabiya xoogan ka qabay markii uu ku guuleystay xilka ugu sareeya dalka iyagoo u diyaar garoobay dagaal culus oo uga imaan kara Xasan Sheekh Maxamuud maadaama farmaajo iyagoo ay daacad u ahaayeen madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay si dadban u sheegay inaysan marnaba duulaan ku ahayn dawladdiisa maamul goboleedyadii sida weyn u taageersanaa farmaajo oo uu la jeedo koonfur galbeed iyo galmudug madaxweyne Xasan oo hadal ka jeediyay munaasabad lagu soo dhaweynayay oo ka qabsantay Dhuusamareeb ayaa waxa uu si cad u sheegay in qoor uu u soo laaban karo haddii ay dadkiisa raali ka yihiin oo aysan dagaal ku ahayn dawladda cusub ee Soomaaliya ka curatay madaxweynihii hore ayaa la doortay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ayaa la doortay oo gudoomiye aqalka sare ah ayaa loo doortay marka fursadda madaxweyne kasta oo dawlad goboleed in mar kale loo doorto kor ayay u sii kacday ayuu yiri wuxuuna muujiyay in haddii dadka ay doonayaan rabitaankooda cidna aysan ka hor istaagi karin hadalka madaxweyne Xasan Sheekh ayaa muujinaya sida ay uga go'an tahay ka dhabaynta ballanqaadkii uu sameeyay oo ahaa inuusan jiri doonin aargoosi siyaasadeed oo xilligan Soomaaliya ka dhici doona inta badan waxaa si caadi ah iska noqotay in madaxweynaha cusub ee yimaada uu weerar toos ah ku qaado maamul goboleedyada uuna keeno shakhsiyaad isaga uu doonayo si maamul goboleedyadaas ay uga socdaan amiradiisa farmaajo ayaa si awood leh ku geeyay kursiga Ali Guudlaawe Xuseen lafta gareen iyo waliba qoor
waxaana ay ahaayeen saddexda maamul ee fuliya go'aanada farmaajo, iyadoo Jubbaland iyo Puntland ay iska diideen guud ahaanba wax kasta oo dowladnimada ka hor imaanaya oo farmaajo uu soo bandhigayay 5 sano aynu ka soo gudubnay. xildhibaan Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ahna ergeyga gaarka ah ee dowladda Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada ayaa markii ugu horeysay ka hadlay shakiga la geliyay kasii mid ahaanshiyihiisa baarlamaanka maadaama loo dhiibay xil aan wasiir ahayn sida dastuurka uu sheegayo. xildhibaan Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ayaa markii ugu horeysay ka hadlay dooda ka dhalatay inuu waayo kursigiisa kadib markii madaxweyne xasan sheekh uu magacaabay ergeyga gaarka ah ee arrimaha abaaraha isaga oo ka dhigay Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in si tabarucaada uu ugu shaqaynayo ugurmashada dadka abaartu ay saameysay oo guud ahaanba ku kala firirsan gobollada dalka, taasina ay tahay waajib ka saaran xilkaasna uu la mid yahay guddiga baarlamaanka ay iska dhex magacaabaan ee shaqooyinka kala duwan loo magacaabo. xil aan qabtay ayaanba jirin. xildhibaanka muhiimadiisa oo dhan waa in dadka uu u shaqeeyo. haddii ay u baahatana xildhibaanka in aan uga tago si aan shaqada u fuliyo diyaar ayaan u ahay, ayuu yidhi. sidoo kale waxa uu sheegay in xildhibaannimada macnaheedu ay tahay in loo adeego bulshada Soomaaliyeed, sida hay-adda xeer dejinta ee baarlamaanka, la xisaabtanka xukuumadda, matalaadda shacabka, ayuu yidhi. taliye nabad sugid oo hadda waxaa la magacaabay xildhibaan ah. tusaale ahaan, hay-ad ayuu u shaqo tagay subaxii oo xilkeeda uu la wareegay. anigu cidda aan xilka kala wareegay yaa waaye? hay-adda aan u shaqo tagay waa tee? intee ay ka diiwaan gashan tahay hay-addan? yaa shaqaale ka ah? ma jirto, ayuu yidhi Cabdiraxmaan Cabshakuur, isaga oo ku doodaya in xilkan uusan horseed u noqon karin sharciyan inuu waayo xubinnimada baarlamaanka Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame 24kii bishii aynu ka soo gudubnay ee May wuxuu u magacaabay xilkan, isagoo Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame u arkayay inuu yahay shakhsi xilkan ka soo bixi kara. waxaana madaxweynaha afkiisa uu ka sheegay inuu yahay nin si mutadawacnimo ah ugu shaqaynaya bulshadiisa oo aysan jirin haba yaraatee cid si gaar ahaaneed uu xilligan uga amar qaadanayo si uu ugu shaqeeyo bulshada. hadalhayn badan ayaa waxa ay ka dhalatay sida madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka yeeli doono ciidamadii lagu cabsigelin jiray mucaaradka isaga uu ugu horeeyo ee Haram Cad loogu magacdaray. marka laga hadlayo ciidanka xoogga dalka qaybahooda kala duwan, waxay ahaayeen kuwo in badan ku milmay siyaasadda. sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa iyaguna waxay yihiin kuwo ku milmay siyaasadda 5 sano aynu ka soo gudubnay, waxayna fulinayeen wax kasta oo khatar ku ah dowladnimada Soomaaliya, sida weeraro loo qorsheeyay mucaaradka, qaarkoodna dilal ayayba ahaayeen weeraradaasi sida xogo muhiim ah lagu helay. ciidanka Haram Cad waxay yihiin ciidanka kaliya ciidanka gorgor si gaar ahaaneed ayay isha ugu hayeen mucaaradka oo idil, waxaana ay aaminsanaayeen in iyaga dartooda loo sameystay. maadaama gorgor hadda madaxweyne dalka uu ka noqday madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ma wuxuu kala diri doonaa guud ahaanba ciidamadaasi, mise waxa uu sameyn doonaa qaab jihayn kale oo wax looga bedelayo howlgalladii caanka ay ku noqdeen ciidamadan oo saameyn xoogan ku yeeshay guud ahaanba dalka oo idil? dabcan waa la arki doonaa sida uu u wajaho arrintan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay aragnimo badan lagu tuhmayo, maadaama 4 sano oo hore uu dalkan u soo hogaamiyey, islamarkaana uu noqon karo shakhsi aan wax walwal ah xilligan ka qabin guud ahaanba in xaalka uu noqdo mid ka duwan 5 sano aynu ka soo gudubnay. dabcan muuqaalkan waxaad ka daawanaysaan Haga Media, barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda. markasta iyo meel kastoo aad joogtana waxaan rajeynayaa in aad sii daawan doonto muuqaalada kala duwan ee halkan aan idinkula wadaagno, asxaabtaadana la sii wadaag. meel kastoo aad joogtaan, jimco wanaagsan ayaan idin leenahay daawadayaasheena.